الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا ولا ليال waxaan mahad dhammaystiran u mahadnaqayaa allah subxaanahu wa tacaala inoo suurtageliyey xafladeennan quruxda badan ee lagu qalin jebinayo kalaamu rabbulcaalamiin. marka xigta waxaan u mahad celinayaa labadaydii waalid oo xaqiiqatan maanta haddeen iyagu jiri lahayn marxaladdaas iyo halka aan taaganahay aanan taagnaan lahayn. waxaan ilaahay uga baryayaa labadayda waalid ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto siday ii soo barbaariyeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyinkiisa ha ugu nimceeyo. marka xigta waxaan u mahad celinayaa mahadcelin qoto dheer marti sharafta qiimaha badan ee nagala soo qayb gashay xafladdeennan barakaysan anoon kala qaadayn. waxaan leeyahay dhammaantiin waan ii soo dhowaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. waxaan ka cudur daaranayaa inaan ka mid ahay dadka aan hadalka ku fiicnayn, marka wixii idhaafa insha allahu tacaala waan ka cudur daaranayaa. wakhtiga oo tegay awgeedna waan soo gaabin doonaa insha allahu tacaala. wax badan oo iga dhex guuxayey waxaa taabtay macallimiinteenna khayr allah siiyo asheekh cadnaan cabdifataax iyo sidoo kale macallinkayga marna ah saaxiibkay sheekh cabdisalaan daawud. insha allahu tacaala waxaan odhan lahaa awalan waxaan soo dhowaynayaa si gaaraan u soo dhowaynayaa waalidiinta qiimaha badan oo dhabtii maanta ah kuwa xafladdan soo bilaabay inoona dhammaystiray. waxaan leeyahay waalidiinta in badan culimmadeenna waynila soo hadleen. waxaan niigu darayaa keliya inta maanta awlaaddoodii aan u joogno qalinjabintooda aan u fadhinno, waxaan leeyahay farxaddiinnu waa farxaddayda. waad soo dadaasheen, gebagabadiina waad gaadhsiiseen. intaan nii hadhayna insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad awlaadda ka warhaysaan oo idaan sii daynin. qur'aankaa ay barteen kow bay u tahay, laakiin waxaa u maqan culumtii shareecadoo dhan. culumtuna ma dhammaato. xabaddaas waa dardaaran waalidka maanta ardaydoodii aan farxaddooda u joogno aan ku waaninayo. waxaa kaloon u mahad celinayaa una hambalyaynayaa ardaydayda qiimaha badan ee xaqiiqatan aynu soo wada rafaadnaynu soo wada daallay, marxalado adag aynu soo marray, laakiin ilaahay fadligii aynu ka soo gudubnay. waxaani leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. waxaan si gaara iyagana ugu mahadnaqayaa arday ka mid a ardaydaana maanta ina hor joogta oo dhab ahaantii ay u suurtogeli weyday inay maanta nagala soo qayb galaan xafladdeennan. waxaa ka mid a cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo jooga waddanka jabuuti. xaqiiqatan wax kastoo xafladda u baahan tahay nagala qayb qaatay, shahaadadiisiina ay diyaar tahay. waxaan halkan hambalyo dheer uga dirayaa cabdiraxmaan, meeshaad joogta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kugu anfaco, cilmigana xagga ka sii wad ayaan ku leeyahay. waxaa sidoo kale isna aan u mahadnaqayaa walaalkayga yar cabdiwaasic nucmaan axmed oo isaguna jooga hargeysa. waxaan isagana leeyahay insha allahu tacaala hambalyo ayaan hawada kuu soo marinayaa, dadaalkaana xagga ka sii wad. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa oon hambalyana u dirayaa ardayad ka mid a ardaydeenna oo iyadna sidoo kale keliya ka soo qaybgalkii u suurtogeli waayey, bishaara khadar maxamed oo iyadna jigjiga joogta ahna xaqiiqatan hooyo loona cudurdaari karo. wax kastoo xafladdu ay u baahnaydna way nagala qayb qaadatay. shahaadadeedna kolley waalidkaa jooga u qaadi doona. iyadna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaaddaada iyo maalkaagaba allah kuu barakeeyo, miisaanka xasanaadka allah kuu saaro. marka xigta waxaan yar taaban lahaa waalidiinta ayn weli ardaydoodu ayn dhammayn qur-aanka laakiin ka mid ah markaska aflax. waxaan leeyahay insha allahu tacaala dadaalka aynu ku bixinay ardayda maanta aad arkaysaan mid lamid ah ayaynu ku bixin doonaa. waxaan iga rabnaa keliya dadaal iyo garib istaag, wax walboo niga baahano iyo awlaadood nagala warhaysaan. hadalka kole waynu wada joognaa. waxaan keliya baaqi nii dirayaa inaynu awlaadda ka wada warhayno insha allahu tacaala.
waxaan xagan si gaar ugu xusayaa macalinkaygii Sheekh Jamaal Maxamed Daawud oo xaqiiqatan maanta isagu jooga xag inoo wada dambaysa oo aakhir ah waxaan leeyahay oo inaga codsanayaa inaad iigu ducaysaan in insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jannooyinkiisa ugu nimceeyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka uu jeclaado oo kamid yeelo sideed albaab ee jannada kuwa looga yeeray inuu ilaahay kamid dhigo ayaan ugu bariyaa inagana insha Allah ta'ala inaad iigu ducaysaan baan iga codsanayaa intaas aan ku soo koobi lahaa hadalkayga xaqiiqatan maanta aad baan u faraxsanahay farxadda ardayda aan la qaybsanayaa awgeed السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته